jinaaya markaan imid qorshaha ugu horreeyey ee aan ku dhaqaaqo midkaas ayuu ahaa hadda ka hor waxaa dhacday naag kalkaalise ey ayaa ka dhumay isla eygii ayaa wuxuu saxiixay inuu asiga dhumay ma la socotaa eygaas inuu famil hantile ka soo jeeday oo wax allaala wuxuu u baahdana la siinaayey waxna uusan weynayn haa sheekada middaas dhanka wadaabo waxa dhacay oo dhan waa sheekadaas waxaana maqan waa hantideenna shaqaalaha anigii ii shaqaynayay mootobajaaj ayaan saari jiray aniga soo maaha baaskiil ayaan soo qaadan jiray sac oo 160 kiilo ayaan baaskiilkaas soo saari jiray guriga ayaan ku keeni jiray danta waxay ugu kaliftay baaskiilkii iyo lo'dii inaan hal mar aniga soo wada qaado ma baaskiilkaan qaadaa mise lo'daan qaadaa lacagtii aan ka shaqeeyo dhan waxaan sameeyey inta soo qaaday ayaan aabbaha faraqa ugu riday aabbahana siduu ii fiiriyey ma qiyaasi kartaa adiga aabbaha lacagtaan sii maku khaldana teeda kale waxaad i leedahay lacag fara badan ayaan qabnaa war shaatigan 4,000 ka bixiyey shaqaalaha aabbaha ayaa iga jeexay shaatigaas sababta aan 4,000 ugu bixiyey ma garan kartaa adiga shirka aabbaha oo ka qaybgalaya inaan gala ayaan rabay inaan wax laga qabto iska dhaaf shaatigayga la jeexay maalintaas wixii ka dambeeyey maskaxdayda waxaa ku soo dhacday hantidayda inaan idinka soo ceshto hadalka aan ku leeyahay ma fahmaysaa hantidayda waa inaad noo soo celisaan welibo barya la'aan howlwadeenka aabbaha ayaan weydiiyey gabadhaas ayaan rabaa intay jirtaa ayaan dhahay wuxuu yidhi baarsa ayay jirtaa baarsa ayaan aaday kadibna maba joogtidbo haddana waxaan u soo noqday baariis